بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. أما بعد، وحالك إنه صلى الماضي قصة قوم عاد. qoladii reer caad la odhan jiray yaman degi jiray waxa arrinkoodii ilaahay uu ku soo gabagabeeyey markii ay rasuulkaa diideen ayaa ilaahay uri fa anjaynaahu waanu nabadgelinay nebigaa waaladiina macahu iyo intii la socotayba ee mu'miniinta ahayd biraxmatin minna naxariis xaggayaga ka ahaatay baanu ku nabadgelin وقطعنا وحان قويني قو كدقني دابر الذين كذبوا بآياتنا كوي آياتها يقبيني كي أدنبي دابر الذين كي أدنبي كذبوا بآياتنا آياتها يقبيني وكانوا مؤمنين تد إلهي رميينا وما كانوا مؤمنين تد إلهي رميينا ما يحين مركا آياتها ساقي السبع إلهي يكسوك بكبي kolkii ay beeniyeen kula adkaysteen nebigaa inaanay rumaynaynin ayaa isaguna uu yidhi fantadiruu innii macakum min almuntadiriin. haddaba waxa la sugaa waa cadaabe, aniguna waan sugayaa idinkuna suga. marka isagiiyo mu'miniintii nabad gale waxa ilaahay uu gooyey macnaha dilay kuwii aayadaha beeniyey kii u dambeeyey. marka daabirul qawm qolaka u dambeeya waxa weeyaan daabirkoodu waa ka u dambeeya. kii u dambeeyey hadduu gow noqday kuwii ka horreeyey maxaad u malay say u kala horreeyeen baa loo soo xaaqay oo loo soo mariyey. kii u dambeeyeyna kawbaa ilaahay uu kaga siiyey. arrinkoodii nimankaa sidaasuu ku dhammaaday. qolada labaad waa aayadda 3 suuratul acraaf. intaasi aayaddaasi qisadii hore u dambaysay. qoladani waxa weeye qowmu saalix ama reer thabuud nimankii la odhan jiray. waxay degi jireen ereyada waqooyiga sacuudiga xagga xigta suuriya. rasuulku sala allahu calayhi wasalam markii uu ku socday dagaalkii tabuuk la odhanayay wuu sii maray goobihii ay deganaan jireen. markaasaa wuxuu lahaa halkaa ha gelina idinkoo ooyayo oo ka xun oo dhibkooda ka warwarsan mooyaane. asxaabta qaarkoodna waxay soo dhaansadeen ceelashii nimankaasi ka cabbi jireen ayay biyihii ka soo dhaansadeen. kolkaasay dharihii ku karsadeen, qooshkiina way ku cajiinteen. markaa wuxuu idhi iska daadiya dharyaha ah, qooshka biyaha ku cajiinteenna xoolaha siiya. ceelkii hashu ka cabbaysiiyo kaa ka dhaansadoo laakiin kan ummadda ilaahay uu cadaabay halkaa ay afka saareen ka fogaadabu meeshaana ha gelina idinkoo ka baqaya wixii ku dhacay inuu idinku dhaco. had iyo jeer siiqada marka aad arkayso aayaadku ay u dhacayaan waxa weeyaan ummaddu markay xagga camalka ku kala safatay ku qaybsamaan xagga abaalmarintana way ku qaybsamayaan. rusushu habka ay wax u wadaan in uu yahay hab isku mid ahoo asal keliya ay ka soo wada fulayaan ayaad arkaysaa, iyo waxa ay ugu baaqayaan halkay ka bilaabayaan. wa ilaa thamuuda akhaahum saalixa wa arsalnaa ilaa thamuud. qoladii reer thamuud waxaanu u dirnay akhaahum walaalkoodii saalixan ahaa. nebiga saalix la odhan jiray ka mid ahaa waxa loo diray reer thamuud. qaala markaa wuxuu uhi yaa qowmi icbudu allah, qolyahaygiiyo ilaahay caabuda, maa lakum min ilaahin qayru, ilaah kale ma lihidin aan allah ahayn. qad jaa-atkum waxa idiin timid bayinatun min rabbikum, mucjiso ilaahay xaggiisa ka timid oo wax idiin cadaynaysa. bayina shay markhaati ah oo cadaynaya inaan rasuul ahay. bayinadii haddii uu tilmaamayna iyo shaygii mucjisada u ahaa nebigan wuxuu yidhi haadihi naaqatullah, tani waa hashi ilaahay lakum idinku talagalay aayatan iyadoo aayada
astaan bay idinta macnaa waxaa wax ku fahamtaan fadaruuhaa ka taga oo iska daaya ta'kul ha daaqdo fii ardi illaah ilaahay dhulkiisa naaqatullaahi fii ardi illaah dhulka ilaahay ha daaqday hanjabaadda ka daaya walaa tamasuuhaa bisuu'in ha ku taabanina xumaan dhibaataha soo gaadhsiinina fayaaqudakum waxaa idin qaban doona cadaabun aliim cadaab kulol wadkuruu waxaa xustaan nicmada ilaahay xusa oo u jeedsada id jacalakum markuu idinka dhigay khulafaa'a min bacdi caad qoladii reer caad la odhan jiray kadib idinkuu dhulkii idin dejiyey markuu iyagii halaagay wa bawa'akum fi lard dhulkiibuu idin dejiyey wakiilo idinka dhigay dhulka degan tattakhiduuna waxaa ka samaysanaysaan min suhuuliha dhulka qaybta bannaanka ah qusuuran fooqyo dhulka eeryada bannaan een buuraha ahayn fooq baa ka samaysatee fooqyo wa tanxituuna aljibaala buurahana waa qoraysaa buyuutan guryo idinkoo ka dhigaya iyo godad la galo fadkuruu aalaa'a allah nicmooyinka ilaahay xusa xusuusta u jeedsada ku mahadnaqa walaa tacthaw ha xumaynina fil ardi dhulka mufsidiina idinkoo kharibaya waa dhulka kharibina ka daaya wacdigiisii iyo waanadiisii iyo bayaankiisii oo dhammaystiran oo dhan walba leh ayuu u qadimay intaa koobana ilaahay uu kaga warramay labada aayadood asla alwaajibaat wa asla alusuul saaskii u horreeyay islaamka oo towxiidkii buu faray ilan towxiid la-aantii iyo iimaan la-aantii camal ma jiro wax wal oo qofka camalahoo loo tirinayo halka lagu duldhisayo lagu binaynayaa waa towxiidka qofku hadduu towxiidkaa waayo wuxuu camal qabanaya khayra wax tirsan ilaahay agtiisa ma aha waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manhuura waxalla wixii camal ay sameeyeen oo dhan waxa aan ka dhigay buu ilahay wax baaba'ay oo aan tirsanayn aakhiro waxba uga soo xaadiri maayo waa iimaan la-aanta waxaa had iyo jeer iska macruufa rususha ilaahay waxa ay leeyihiin markhaatiyadaasi waa badan yihin waxaase ugu soo horeeya shay la ydhaa almucjiza mucjisadu waa shay khaariqulcaadahoo la yaab leh waa shay markhaati u noqda rususha oo wakhtiga hore ee dadku aanu ilaahay qowlkiisa iyo qowlka rasuulkana ogolayn waxa qancinaya waa mucjisada ilan aayad hadduu u keeno dadku rumaysan maayaan hadduu u keeno qowl rasuulna rumaysan maayaan waaba kuwan isagiibaabay diidan yihiin sidaa daraaddeed mucjisadani waa shay aayada saa markaa naskuba tilmaamayo markhaatiya oo calaamad u ah risaaladiisa iyo shakhsi caadiya inaanu ahayn mid ilaahay xaggiisa ka yimid inuu yaho ilaahay awooddiisa la barbar taagan yahay marka bayina waa shay wax caddaynaya waa naaqatullaahi lakum aaya aayadu waa calaamo wey aayadda mucjisada la yidhaahdaa aayadda qur-aankana waa la yidhaahdaa aayadda kawnigaana waa la yidhahdaa ee cirkiiyo dhulka ka muuqanaysa saddexduba waa saddex aayadood oo calaamooyina hashani intay la egayd iyo qur-aanku uma banbixin iyo halkay ka soo booday qisooyin badan oo had iyo jeer ku sugan kutubu tafsiir oo qaarkood waxyaaba badanoo cajaa'iba ay xusaan halkan nasku ma sheegine wuxuu xusay uun hal ilaahay u soo saaray oo isaga mucjiso u ahayd oo dabcan haddii la yidhaha waa mucjiso waa shay aan caadi ahayn weeye min khawaariq alcaadaat baa la yidhaha sidii hore loo soo arki jiray wax ka duwan saa daraaddeed baa qur-aanku uu xusaa inay iyaduna maalin cabaysa iyaguna maalin ay cabayeen marka hal aan caadi ahayn inay tahay oo mucjiso ah oo isaga markhaati u ah oo codsi ay iyagu codsadeen ku timid inay tahay fadaruuha ta'kul fii ardi illaahi walaa tamasuuha bisuu dhulka ha iska daaqdee xumaana ku taabanin oo hadilin oo ha waxyeelaynina eraygani wuxuu imanayaa markii hanjabaadu ay timid ee ay hanjabeen ay yidhaahdeen warbahashan biyihii inaga cabtay xoolihii inaga cidhiidhi gelisay aan dilno kolkii ay taasi ka soo yeedhay buu leeyahy warhashani waa mucjiso ilaahaye iska daaye cadaabba haddii aa wax u geysataan waxay dhali doontaa arrintaasi cadaab fayaaqudakum cadaabun aliim nicmada ilaahay buu xusuusinayaa
وأسلكيدaba nicmadii diinta ayay taa hor ahayd ee ilaahay ummadan uu siiyey waana nicmada nicmooyinka ugu horeysa waana nicmada nicmooyinka ugu asalsan insaan wax ilaahay uu siiyo diin baa ugu muhiimsan oo ugu horeeya taa markuu soo sheegay oo waxyi oo rasuul ah oo mucjiso ah wuxuu sheegay hadda nicmada maadiga ah ee adduunyada ay ku haystaan iyo fursadu ilaahay siiyey iyo tijaabada ay marayaan iyo inuu xusuusiyo ummadaha halkan ka tagay waxa ilaahay idinka dhigay khulafaa min bacdi caad khulafaa qolada halkan laga rogay reer caad la oran jiro ka baabaayo idinka halkoodii yimi bawwa'akum fil ardi bawwa idin dejiyay dhulku idin dejiyay waxa markaa xusaya oo nicmooyinka ilaahay kamid ah inay ummadi had iyo jeer ardiyad hesho al-ardiya meel ay degaan dadku inay helaan oo maamulkeedana ay leeyihiin isla markaana si ay gobonimadooda u hantaan calafkoodii iyo arsaaqadoodii iyo wixii ay ku noolaan lahaayeen ay helaan waa nicmooyinka ilaahay taa waxa garanaya qofka qaxoontiga ah qofka qaxoontigii markuu waayo ardiyad iyo dhul uu leeyahay iyo arsaaqad hagaagsan oo xor u yahay iyo meel uu xukumayo intaaba marka uu waayo dee raaxaba agtiisa ma taalo kolba dhan unbuu u dhaqaaqi doonaa cidhidhi iyo diiqad badanna wuu ku jiraa marka min nicam illaahi bay ka mid tahay sidaa daraaddeed baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam diinta ilaahay markuu 13 sannadood ku faafinaya maka ardiyadna la waayay يعني أرضية waxaynu uga jeednaa deegaan iyo dhul xor uu yahay xukunkiisa iyo inuu ka asaaso dawladda islaamka kolkii uu taa waayay baa ilaahay u fasaxay inuu tan ka qaxo markaas loo helay saldhigii iyo xaruntii oo ahayd daarul hijra madiinatu rasuulillah sallallahu alayhi wasallam wabtaas dabadeedna dawladda islaamka cagaha loo taagay difaaceedii ay yeelatay islaamkiina ka faafay marka nicmooyinkay ka mid toosaa daraadeed buu xusuusinaya waa dhulkii idinka ilaahay siiyay idinkaana ka talinaya idinkaana horumarkan ka sameeyay tattaqiduuna min suhuliha qusuran wa tanhituna aljibala buyutan nimankana waxay horumar badan ka sameeyeen min haythu al-imara bahasha la yiraahdo dhismaha iyo handasada ayay aad u yaqaaneen meesha barnaanka fooqina dheer bay ka dhisi jireen buurahana buurtu waa tan soo jiifta marka sanaaga qaybta la yiraahdo soo jiifta intay qoraan oo sida gidaarka isku simaan ayay ka furi jireen albaabo dabadna godad baa laga qodayaa aqalla maqsin ah oo fara badan oo sikadaha ka soo jeeda buuraha ayaa laga sameeynaya marka kuhuf iyo anfaaq ana godad buuraha ah oo taloola ayay sameyn jireen magaalooyin badan oo la tilmaamo inay kumba ku dhawaayeen ayaa nimankaasi ay bineeyeen ilaahay baa wuxuu wa thamud alladhina jaabu as-sakhra bilwad wa thamud qoladii reer thamudna ilaahay waa halaagay alladhina jaabu ay qata'u wa kuwii soo gooyay ee jaray as-sakhr bilwad dhagaxaantii waadul qura ku taalay waadigu waa waadul qura waa dooxay area ballaaran baa waadiga looga jeedaa waadul qura meeshay degi jireen baahay dhagaxaantii cascasaaye ku yaalay bay jareen oo ay soo gooyeen oo ay cimaarada ka bineeyeen marka hada horumarkana waa la idin siiyay iyo xirfadaha ilaahay idin fahamsiiyay maawiga iyo guriga ka samaysanaysa saasa marka iyadana min ni'amillaahi bay kamid qofku bara inuu yeesho bara uu galo inuu yeesho hadduu bara waayana sideen horaba u soo xustay waa qaxoontiyada ku dhacaan taas oo kale qofku waxa uu dareemayaa dhibka ay leedahay suuratu nacam suurada la yiraahdo suuratu nicam oo suuratu naxlina loo yaqaano haddii aad akhrido quraanku waxa uu dadka ugu mana sheeganayo qaybaheeda hore waxa uu ku darayaa guryaha ilaahay uu siiyay dadka guri la bineeyo iyo mid suufka laga sameystay iyo intuban min ni'amillaahi bay kamid nicmooyinka ilaahay xusoo dhulkan fasahaadina waa dhulka fasaadka ka daaya asalkeedaba ilaaha ku nicmeeyay abaalkiisu waa mahadnaqoon abaalka nicmadu waa shukri abaalka nicmadu maha kibir iyo kufri qaala al-mala'u alladhina kuwi waxay yiraahdeen istakbaru min qawmihi qoladiisa kamid ahaayo isweyneeyay
isagii may la hadale kuwii raacay bay la hadleena mu'miniinta ahaa marka waxay yidhaahdeen gaaladii madaxyaweynta ahaa liladiina istudcifuu kuwii ay tamar daraysteen ama tunjilaacsadeen ama ay ka awood bateen waxay ku yidhaahdeen ee mu'miniinta ahaa liman aamana minhum ciddii mu'miniinta noqotee mustadcafiinta ka mid ahayd waxay ku yidhaahdeen ataclamuuna miyaa ku qanacsantihiin oo ogtihiin anna saalixan ninka la yidhaahdaa mursalun min rabbi ilaahay xaggiisa in laga soo diray waryaadheen ma waxaa aaminsantihiin saalix inuu rasuul yahay way u cagajuglaynayaan qaaluu mu'miniintii waxay yidhaahdeen innaa anagu bimaa ursila bihi mu'minuun waxa lagu soo diraanu rumaysanna qaala aladiina istakbaruu kuwii kibray baa waxay yidhaahdeen innaa anaguna biladii aamantu bihi kaa rumayseen kaafiruuna waanu ka gaalownay saasaa ilaahay u xusay almala horeynuu soo tilbaannay nooca ay yihiin iyo nooca ay u dhaqmaan iyo dadka waala ee fasahaadiye inay yihiin mar walba oo awoodda dhaqaale iskeeda iyo awoodda cilmiga ilaahay insaanuu siiyo inta yar buu waafajiyaa sabirkeeda inta yar baa ilaahay waafajiyaa sabirkeeda inta badanina nicmada cilmiga iyo nicmada horumarka iyo ta dhaqaalaha kuma sabri karaan laakiin way la fatahaan oo way la butaacaan oo caalamka ku birbirqeeyaan saynu arkayno qur-aanku laba tusaale uu naga siiyo taa uu ku muujinayo nicmada cilmiga iyo dhaqaalaha iyo nicmada sultada iyo awoodda waa qaaruun iyo ninkii fircoon la odhan jiray midna awooddii xukunka iyo maamulku dhinaca xun isticmaala midna tii cilmiga iyo tii dhaqaalaha had iyo jeer waa dadka aan hagaagsanayn labada inta ay wax ku fasaadiyaan wey marka istikbaarkooda waa istakbaru waxa ay sheegaysaa kibir aanay lahayn bay qaateen ila kibirka ilaahay unbaa xaqula keligii subxaana marka wuu isweynay haddii la yidhaahdo qofkani sidaasuu iska dhigay haddii lagu idhaahdo macnaheedu waxa weye muu lahayn manuu ahayn mid kibra muu ahayn kibirna xaqu muu lahayn liladiina istudcifuu liman aamana minhum kuwii mustadcafiinta ahaayoo mu'miniina ayay hadalkan ku yidhaahdeen rususha caadadooda waxa ahaa in dadka had iyo jeer ugu horeeya risaalada ay yihiin dadkan masaalix iyo maal iyo manaasib iyo waxba dhowranayn laakiin abuurkoodii caadiga ahaa ku sugan si caadigana u fikiraya aan adduunyo iyo maslaxad iyo cid kale toona u xidhxidhnayn ilaa waxaan oo dhan waa lagu ibtiloobaaya waxaasoo hayna in badan buu shaydaanku hoos galaayoo lagu ibtiloobaa markii ay la hadlayeen may odhanin waar miyaa rumaysan tihiin waxa uu wado saalix laakiin waxay dhahaan saalix ma aaminsantiin inuu rasuul yahay ataclamuuna anna saalixan mursalun min rabbi saalix miyaa risaaladiisa aaminsantiin inuu rasuul yahay iyagu markaa jawaabtay mu'miniintu bixiyeen waa mid kaba xeel dheer waxay weydiiyeen may odhanin saalix waanu rumaysannahay saalix risaaladiisa laakiin waxay idhaahdeen innaa bimaa ursila bihi mu'minuun shayga lagu soo diraa baanu rumaysanay maxay sheegaysaa taas waxay sheegaysaa isaga iska daa waanu rumaysannahay isaga laakiin shayga uu inoo keenaa baanu rumaysannahay marka waa su-aal kasii baliiqsan oo kasii xeel dheer jawaab ka xeel dheer weeye su-aashiiba isaga waanu rumaysannahay daayo waxaanu rumaysannahay shayga uu la yimi iyagiina waxay idhahdeen kaa uu la yimi ka gaalowna had iyo jeerna waxaa la ysku haystaa rasushu manhajka ay sidaan ashkhaasta shaksiga ma ahe waxa weeyaan shayga uu la socda ee manhajka ah ee wax bedelaya manhaju taqyiir waayo rasuulullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam dee quraysh uu iska dhex joogi jiray iyagoo aaminsan oo ammaanadooda u dhiibi jiray oo garsoorka iyo xukunka u dhiiban jiray waxay isku qabtaan oo ay jeclaayeen ayuunbuu keenayuun towxiidkan iyo waxyigan iyo risaaladan dabeedna markaasay baddu buurta hirdiray oo ay xanaaqeenay cirkaa mareen gaaladu adiga kuma diidana aayaadka ilaahay bay diidayin baa qur-aanku tilmaamaya waaya leanna waxay ogyihiin oo keenaya taa shaygan manhajkan yimi inuu yahay mid wax bedelaya wixii haysteenna meesha ka saaraya xumaa shay wanaagsan oo la mahadiyeyna dhisaya taasay ogyihiin facaqaruu naaqata hashii bay gowraceenoo wacatow waxa ay ka santaageenay ka kibreen can amri rabbihim ilaahooda amarkiisa
waqaaluu waxay yidhahdeen yaa saalixow i'tinaa waxaad noo keentaa bimaa tacidunaa waxaad nagu cabsiinaysa bal iska keenoo soo dejiin kunta min almursaliina rasusha haddaad ka mid tahay wax alla waxaad nagu cabsiinaysa cadaaba keen fa akhadatum rajfatu waxaa ku dhacday gilgilashu dhulku uu la gilgishay fa asbaxuu waxay noqdeen fii daarihim guryahoodii jaahimiin kuwo jilbaha u wada dhacay afkay goosteen afgembi bay u dhaceen arrinkooda halkaas ugu dhammaaday hashii bay gowraceen qur-aanku wuxuu tilmaamay fatacaadaa facaqar hal nin intuu mindidii laacada u qaatay inuu ama boqon gooyo ama dhuun dhabay labada waa lagu tilmaamay dhaawaca meel lagu dhufto aan laga kici karayba caqriga la yidhaahdaa markaa boqongoynteenu isticmaalaa mararka qaarkoodna dhuundhowga waa la yidhaahdaa gowraca geela la gowraco kaasaa naxri iyo dhuundhow waa la yidhaahday marka nin baa gowracay iyaga ka mid ahaa haddana ilaahay wuxuu hi way gowraceen oo iyaga dhammaantood baa lagu wada eedeeyey sababtu waxay ahayd way la khatideen way la soo farsameeyeenoo wax lagu soo tashaday bay ahayd sidaa daraaddeed baa shareecadeennu ay qabtaa dilka loo yaqaano tamaalu ah attamaalu shayga fiqiga islaamigaa loo yaqaano dilka heshiiska ah cidda ku soo heshiisay unbaa lagu qaadaa kiiskiisa xataa mid ka midiiba ha fuliya hadday kusoo heshiiyaan mu'aamaraday tahay oo midi fuliyo inta kalena waa la raaciyaa sidii uu cumar ibn khadaab qoladii reer yamaneed ugu qaaday marka taasi waxay tilmaamaysaa qof kasta oo ficil xun ka qayb qaata ilaahay agtiisa waa ku eedaysan yahay yuu gacantaba saarine qur-aanku wuxuu tilmaamay 9 nin inay abaabuleen dadka ku abaabuleen hashan mucjisada inay dilaan ninkana mindida loo dhiibay uu fuliyay سورة النمل هذا أخذ إليها وحده وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون وإياك يأخذك دجنا يا مرنا أو صدان إلهنا أو طبيعتنا أن ضفرنا أنت إنه دلك جيسنا أن ضفرنا وحصل إسكال على عينه sidaas daraaddeed baa waxay ku dareen haddana cinaad hada waa cadaabka keen isagiina dee ilaahay buu baryay rasuulku ilaahay unbuu baryaya baryada u dambaysa ee rasuulkaasi codsiga u dambeeya u qadimana jawaabtiisu waa cadaabkaa faasbaxuu fii daarihim jaahimiin rajfadu iyo sayxadu way islaasimaan mararka qaarkood qur-aanku sayxu tilmaamaa qaylo mararka qaarkoodna rajfa gilgilasho iyo gariir waayo waxa iska macruufa sida cilmiga fiisigiska macruufka ku ah shay kasta oo qarax sameeya gariirkiisana u wataa marka nimankan gantaalihii ilaahay lagu hurgufay baa gariirkan iyo codkan iyo iska lahaa qayladii iyo gariirka labadaba iska lahaa waaya faasbaxuu fii daarihim jaahimiin nimankii xaafadihii ay deganaayeen bay afka goosteen afka u dhaceen itaal daradooda ka turjumaysa raggii isla fagadh yidhi ee kibray way kibirsanaayeen way fadhiisan kari waayeenba si caadiyana way u jiifsan kari waayeen waxna way iska difaaci kari waayeen laakiin way tuusadeen qofkaasi kolkuu afgambi u dhaco itaal darada halka u dambaysay sheegaysa dee nin ilaahay qabtay kabtiima yeela fatawallaa canhu wuu ka dhaqaajiyey xaggaasuu uga dhaqaaqay nabigii la odhan jiray nebi saalix markii ummaddiisii la rogay uu dhaqaajiyey uun wa qaala wuxuu uhi yaa qowmi tolkayow laqad ablaqtukum waxaan idin soo gaadhsiiyey risaalata rabbi fariintii iyo waxyigii ilaahay ii soo dhiibay waan idin keenay wa nasaxtu lakum waanan idinla taliyey oo waan idin daneeyey walaakin idinku laa tuxibbuuna annaasixiin ma jeclidin wax idin daneeyaba wax idin daneeya idaan doonaynin oo idinla taliya arrintani waxay tilmaamaysaa markii la rogay kadib buu hadalkan gudbinaya wuxuu arkay foolxumada meesha ummadahan ku dhacday iyo siday u dulloobeen iyo sida ay u kala tageen wixii uu la doonayay waxa nimankan ku dhacay muu odhanin sidii Soomaalidu ay odhan jireen haddii lagu diiday in la jabo ma jecesha isagu xaggaa kama duulayee
ummadan ehelkiisa ahayd ee rogmatay ee ayaan darradu ay ku dhacday buu ka murugaysan yahay waa nooc dareena ka jiridhacoonayo inay badbaadi lahaayeen ayuu jeclaan lahaa laakiin kol haddii ay taa diideen waa kaa anugu wixii waajibkayga ahaa qabtay waanaan idiin daneeyay waa se garan weydeen waa maqaaladuu nebi maxamed ku lahaa oo kale qoladii reer beder kufaartii beder ku baktiyey ee lagu laayay intuu baktigoodii ururiyey ayuu booraan weyn ku guray oo qaliibu bedrin la idhaahdo booraantaasi ku raseeyey dabeedna wuu isdultaagoo wuxuu lahaa hebelow 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 magacyadoodii buu tiriyey nimankii maka looga soo qaxay oo meeshan afka goostay ayuu magacyadoodii tiriyey war wixii ilaahay noo ballanqaaday annagu waanu helay wixii ilaahay idiin ballanqaaday ma hesheen ilaan iimaan laawo inuu adhaxda jabiyuu ballanqaadee tii ma hesheen annagu nasrigii ilaahay waanu haynaaye sayuhzamu ljamcu wayawalluuna dubur bali saacatu mawciduhum wa saacatu adha wa amar ballantii waa haynaa idinkuma haysaa cumar baa yidhi maxaad kala hadlaysaa qowman qad jayafuu dee dad tawafaya oo bakti ah waanay jawaabayninuune kama maqal fiicnidin buu sidaa idinkuu maqlaysaan oo kale unbay u maqlayaan waanayse jawaabayn dadku marka ay had iyo jeer garan waayaan cidda u naseexaynaysa ee dantooda haysa ee horu marinaysa ee halaagga kala dagaalamaysa kolkay garan waayaan waa marka ay kodada iyo karkaarka weydaaranayaan way afka goosanayaan marka ay dabaca raabaan ka halaagaya ee laga yaabo inuu fitneeyo diin iyo dunyaba seejiyo een adduun iyo aakhiro toona u haynin ummadu kale hadday kaa dabaca raabaan qur-aanku wuxuu ina barayaa oo ay dhagaysan kari waayaan ka dantooda wadee diin u sheegaya horumar u sheegaya naseexo u sheegaya ee xaq u sheegaya dhagaysan kari waayaan arrinkooda waa kaa waluuda nebiga luud la idhaahdo wa arsalnaa luudan weyn ismi walba ficil munaasib ku ahunbaa loo soo qadari fasaxadda qur-aankay ka mid tahay wixii la iska fahmi karaya inuu jaro wa ilaa hamuud bay markii hore ahayd wa ilaa hamuuda arsalnaa baa ku jirta ilaa hamuuda laakiin ficilkiioo toos mucadda u abaa halkan maxduufa wa arsalnaa luudan nebiga luud la yidhaahdo waxaan u dirnay ilaa qowmihii bay ka dhigantay nebi luudna qoladiisii baa ilaahay u diray isagoo erga ah oo gaalnimo iyo xumaan uga digaya id wakhti ka warranoo taariikhdiisa u sheeg ummadda qaala liqowmihi qoladiisii buu nebi luud ku yidhi ata'tuuna alfaaxishata war ma foolxumaa la timaadeen wax ceeba maa sabaqakum aanu idinka horraynin bihaa iyada min axadin min alcaalamiin caalamiinta wax soo maroo shakhsi idinkama horraynin foolxumadu maxay tahay wuu sheegay innakum lata'tuuna alrijaala waa raggii baa u tegaysaan miyaa shahwatan idinkoo wax ka dayaya oo u hamoonaya min duuni nisaa dumarkiina waa ka tagteen bal antum qowmun musrifuun dad xadgudbayaaba tihiinba kolada halkaa maraysaan sidaasaa nebigaa ilaahay uu kaga warrama qolo waliba gaalnimada waxbaa u weheliya foolxumo kale marka qoladan waxa u weheliya gaalnimada maa yusama bilinxiraafi alfitri akhlaaqdoodii oo leexatay iyo abuurkii wanaagsanaaye insaanka oo leexday bal abuurkii fidriga ahaa xataa xayawaanku lahaa oo xayawaanku dee labku lab wax kama dayo marka sidii ilaahay u abuuray fidradii insaanka uu lahaa ee xayawaanka uu lahaa tiibay ka tegeen isagoo yaabsan isagoo u diidaya isagoo ku inkaarsan wuxuu yihi warma waxaa la timaadeen foolxumo aan cidiba idinka horreynin aayaddu waxay caddaynaysaa waxaan la yidhaahdo camalu qowmi luud oo nin wax ka daya inay kuwan ugu horreeyeen ilaan cunsurtu kolba meel bay kasoo bilaabmaysa shirkiga iyo gaalnimadana wuxuu xadiidka saxiixi tilmaamayaa inuu qowmu nuux kasoo bilaabmay kuwana ceebtanaa kasoo bilaabantay waa yaabsan yahay nebiga waase u digayaa waa u diidaya waar ma raggii baa wax ka daydeen idinkii oo dumarkii ka baydha ilaahay ugu talagalay waar dee sidaas waa israaf iyo xadgudub waanadaas u jeedinaya ula hadlaya weliba markuu taa u diiday badiil buu keeno waxa uu lahaa ulaa'i banaatii hunna adharu lakum waar hablahayganaaba xalaal idiinahay guursada haddaad doonaysaan hablahaygu waa kuwan
may dhagaysanin ee waa diideen waa arrin aad iyo aada u foolxun oo qofka abuurkiisu caadiga yahay oo maaragtay la yaabayo kolkase insaanka abuurkiisa uu leexdo waxaani wuxuu u noqonayaa wax uu dabada ka riixo oo wadwado oo dee laga yaabo baynu suuqu samaysto ummadaha ilbaxnimada inoo sheeganaya gaalada wadamadooda in fara badan oo ka mid ah qolyaha weliba yurubta la yidhaahdo waxaa codeeyey baarlamaanadooda waxay ku codeeyeen mataqaanaa in raggu iswaxeeyo oo weliba loo ictiraafay inuu xaas yahay labada meel wada jooga nimanka ah ayaa loo ictiraafaya inay qoys yihiin qoysas baa la biiliyaa haddaad maqasheen oo la siiyaa arsaaqadooda iyo wixii ay u baahan yihiin labada nina isqabaana way ku jiraan qoysaskaasi la soco waaya kolkaasuu isagii dabeedna isku dayayaa mid ka midihi inuu isyaro naageeyo oo iska baadi doono wixii lagu yaqaanay dumar haddii ay tahay ismarmaroorintii iyo isjilcintii iyo dumarkii maaragtay naasti ay lahaan jireen iyo hormoonadii jidhka wax laga bedelo iyaba waa cajiib iyaguna kolka halkaa marayso waxa ay samaysteenba dee ururo qowmuluudku ururay samaysteen ururadaasi mudaharaadkooday leeyihiinoo murankooday leeyihiinoo xaqooday raadinayaan way sii wadwadayaan weliba markaasaa waxaa kaloo loogu sii daray in haddii noocaa la farageliyo oo arrimahooda laga hadlo ay tahay wax ay aaminsan yihiin ama ay xiiseeyeen in laga hortegayo oo diin ahaan looga hortegayo oo dadkani waxay jeclaadeen daraaddeed lagu cadaadinayo markaase aada loo difaacaya weliba wala difaacaya waxaan aada ula yaabay ilaan dadku hadduu gobonnimadu ay ka dhimato wax walba wuu ku dhaqmi doonaa waxay ii sheegayeen dadka halkaa joogaa nin soomaali ah ayaa mid ay walaala yihiin buu soo qaadi kari waayey oo soomaaliya jooga wuu soo kaxayn kari waayey waddadii u mari lahaabaa ku adkaata ma taqaanaa waddadan u maray markaa subxaan allah wuxuu idhi mid noocaas ahoo xaggaa jooga oo aanu isku qoysnahay oo labadayad isku lamaanahay ayaa diin ahaan dadka yagii igu cadaadinaya ninkiina wuu iman kari saaxiibkayna waa iman kari la'yahay marka de waxaan u baahanahay maadaama la igu cadaadinaya arrintaa diin ahaan in ay garab gashaan ma sidaasaabaa idho cala tuulba ayaa qalinka loogu duugay markaas dee isagu inuu walaalkii keenaa unbuu waxaan imay dee agtooda oolina waaba walaalkii inuu walaalkii keenaa unbuu doonayay dee markuu yimidna wuxuu hi waa bal iska shaqo tag waxay noqotay wax cajiiba iyo dee waddo maaragtay dadku qofkii iimaan lihi uu kaba khajilayaba xataa wax kusoo saarkeeda iyo marideeda uu ka khajilayaba yaanay dhabba ka ahaanine laakiin inuu filim noocaasa qofku matalo waxaad u foolxun bay noqotay iyo dee hungurigu inuu meelo badan kula geli karo ummadaha in sidan loo dilo oo akhlaaqdooda heerkan la gaadhsiiyo wax badan bay yuhuuddu ka dambeeyaan oo ummadda had iyo jeer rumuud laguma wadi karo sidaa doonto looma leexleexin karo markay leeyihiin akhlaaqdooda iyo raganimadooda iyo shahaamadooda kolkay ummaduhu leeyihiin waa dad mabaadilahoo tashanaya oo kaa hor imanaya laakiin markay noqdaan dad jaanjaamay oo hamadoodu hogaaminayso oo kolla xagga ragga ay u kaxaynayso kolla xagga sinada ay u kaxaynayso kolkay noqdaan waa dad si dhib yar loo hogaamin kara ummado marka halkaasay inta badan yuhuuddu ururada yuhuudda arrimaha aada iyo aada u abaabulaan waxaa kaloo arrintan ay ku salaysan tahay mabdii la odhan jiray dimuqraadiyaddu waa waxyaabaha ay sugayso weeye ilaa waa xorriyadda qofku inay mudlaq noqoto sii daysnaato weeye hadduu dimuqraadiyaddii baa sheegaysa qofkani maadaama uu waxaan doortay inaan la caburinin oon loo diidin dimuqraadiyadda meelahan dadkeennu intay mimbarada iska fuulaan iskaga yaro dhololaan ay dhahdaan dee dalku waa dimuqraadiyad baynu qaadanay dee dimuqraadiyaddu waxay sugaysaa waxaan la yidhaahdo qowmiluudka camalu qowmi luud bay sugaysaa
in raggu iskuursadaabay sugaysa iskuuriya inaan odhanina uu meel wada joogo taasay sugaysa marka dimuqraadiyadda dadka qaarkood baa asalkeeda qalad ka fahamsanoo waxay yidhaahdaan wax kale maaha waa wada tashi uun waa qof aan muthaqaf ahayn oo aan mabda'aasi waxa uu yahay akhriin weeye waa wada tashi uun bay ku odhanayaan oo sida islaamkuba shuuro uu u leeyahay ayay tanina wada tashi uun u tahay wada tashi maaha waa mabda'dan oo caqiidadiisa leh oo akhlaaqdiisa leh oo dhaqankiisa leh oo waxaana ay ka mid yihiin marka in runtii dadku dee ay iskaga maaragtay iyagoo acyaanahoo dee ummaddii hogaamin u ah ay waxaa iska yidhaahdaan un ma ahee islaamku wuu leeyahay shuuro iyo wadatashi laakiin dimuqraadiyaddu shuuro keliya maaha wadatashi keliya maaha waxaana weheliya waa xorriyad waa doorasho ka imanaysa shacbiga oo hogaamintuna ay ku xukumayaan min ashacbi ila shacbi baa la idhaahdaa waa dadku wixii ay doorteenoo xaggooda ka yimi oo madaxdu inta ay u habeeyaan ay ku maamulayaan ilaahay oo la diidaya hadday tahay akhlaaqdii oo meel laga dhacaya hadday tahay xumaan nooc kasta haddii la dooranayo dadku wuxuu doorto waa dooran yahayba agtooda taagan marka in arrinka lagu baraarugsanaado aad bay muhiim u tahay wuxuu marka had iyo jeer dadku dhulka marmaro ee meelaha la soo warwareego ee ummaduhu debadda ay ka soo noqdaan dee cudurkan waa lala soo noqonayaa garo cudurkan waa la sheegayaa dad qabaa inay jiraan oo dee meelaha ka soo noqonaya waaya wamaa kaana ma noqonin buu ilaahay yidhi jawaaba qowmihi qoladiisii jawaabtoodii ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooyaane akhrijuuhum min qaryatikum waar magaaladiina ka mastaafuriya luudiya inta la socota maxaa lagu eedeeyey innahum unaasun yatadaharuun waaba dad isnadiifinaya innagaaba isukeen nadiifinaya fa anjaynaahu wa ahlah nuuxiiyo intii ehelkiisa ahayd waanu nabadgelinay ila imra'atahu ooridiisii mooyaane kaanat min alghaabiriin waxay ka mid ahayd kuwii cadaabka ku hadhay wa amdarnaa calayhim waxaanu ku shubnay madaran roob cadaab sida roobkaoo kale u qulqulaya ayaa lagu hurgufay fandur waxaad eegtaayood u fiirsataa kayfa kaana siduu noqday caaqibatu lmujrimiin dembiilayaasha cidhibtoodii halkaasay ku dambaysay jawaabtoodii tanunbay noqotay buu ilaahay markuu ilaahay ku leeyahay nimankii wax kale kumay jawaabina waxaanay ku jawaabeen waa wax lala yaabo weeye bal u fiirso halkuu kala hadlaya halkay ka hadlayaan bal hoosu eeg jawaabta bayaankaa u jeediyey iyo dacwaddaa uu qadimay iyo jawaabtu talow ma isleeyihiin ma isku dhow yihiin ma isu qalmaan maya jawaabtoodii wax kale may noqonin ee waxay yidhaahdeen isaga iyo inta la socota nebi lood erya asalkeedaba qofka muslixa ah ee wax wanaajinaya dadka mufsidiinta ah halkay uga bilaabaan waxa weeye eryadaasaa looga bilaabaa mastaafuriya xidha cunaqabateeya sababtu waxa weeyaan haddii la odhan xataa muwaadin kasta aado jinsiyada laga saxbinaya oo laga qaadaya markaa sababtuna waxa weeye waynaan wada joogi karaynin wey leanna iska xejin mayno wuu nala soo kacaya hadduu shaygan sii wada wanaag ah oo sidaa aynu ku dayno la tartami kari mayno dadkii iyo ciddii fidrada lahayd baa uu kaxaysanaya saa darteed ina weydaariya adiga arkaya dee qisaska ambiyada markaad akhrido nebi ibraahim baa la mastaafuriyay oo nebi muuse oo nebi ciisaaba caalamka kore ilaahay u geeyay oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam taasay u socoto halkaasay cuskadeen laakiin waxaa aad u cajiiba eedaynta lagu soo ogay waa maxay innahum unaasun yatadaharuun waa qaar isnadiifinaya nadaafadu goormay noqotay dembi iyo kiis qurunka iyo wasakhduna goormuu noqday ammaan iyo xarago dee waa markuu qiyamku leexdo marka dadka qiyamkooda iyo dhaqankooda uu leexdo waxa nadaafada iyo dahaarada iyo udgoonka ayaa ceeb noqonaya qurunkanina wuxuu noqonayaa ammaan buu noqonayaa iyo horumar iyo reer magaalnimo iyo xarago ayuu noqonayaa waa kaa kiiskaasaa lagu soo ogay qofkii haddii diin lagu eedeeyo dee ka kale waxa qiimo lala diin la-aanta diin buu leeyahay cibaaduu leeyahay mabda' buu leeyahay qofkii oo lagu eedeeya waxa ay sheegaysaa inta ka horjeedaa inay ciddan ammaan ka tahay agteeda oo ayaan darrada weyn
marka ummadu leexdaan ee madaxa minjo loo rogo ayuu wanaagu xumaan noqdaa xumaantuna wanaag noqotaa waa qisada waxayna baraysa wey innahum unaasun yatadaharuun mar haddayna qulunkeenii diideen mar hadday isnadiifiyeen dee joogi kari mayno wada joogi kari mayno erya markaasaa isagii iyo ehelkii sida ilaahay uu nabadgeliyey ehelka waxaa ka mid ahaa dee habartiisi laakiin habar guuldarro badan bay haydoo isaga ha ka ag dhowaatee iyagay liiskooda ku qornayd oo ay ku tirsanayd wasaasad bay u ahayd balaayadaasay horkici jirtay ilaahay markaasuu ka reebay halkaasaa lagu halaagay daraba allahu maalan liladiina kafaruu imra'ata nuuxin waimra'ata luud labadaa dumara nebi luud iyo nebi nuux ooriyahoodii ilaahay tusaalu idinka dhigay kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayni fakhaanataahumaa falam yugniya canhumaa min allahi shay-an waqiila dkhula annaara maca addaakhiliin naartiisaa ilaahay uhi gala labadii nebi waxba way anfici kari waaye marka qof wanaagsan qof xunoo qof wanaagsan ka ag dhow xumaantiisumaa lagu qaadaya kaanat min alghaabiriin haabirku waxa way ayilbaaqiina fi lcadaab kuwii cadaabka ku hadhay bay noqotaye kuwii badbaaday may noqonin ehelkiisii wuu badbaadi waayey nebi lood ooridaasi way badbaadi weyday maadaama iimaan la-aan iyo akhlaaq xumo wadatay waxa ilaahay uu ku tilmaamay habku u cabirayna uu yahay nimankaa gantaalaha iyo sawaariikhda uu ku hurgufay inay sida roobka u yaacayeen roob baan ku shubay baa ilaahay sida dhibicdoo kale ayaa cadaabkiisii uu ku sii daayay iyadoo dhulkana lala rogay sida qur-aanku meelo kale uu ku sheegay sidaasaa mujrimka cidhibtiisu waataa kuwaa kuma gooni ahae dembiilo kasta cidhibtiisu waataa inuu ilaahay dhulka la rogo ka argoosto wey wa ilaa thamuud wa ilaa madyana akhaahum shucayban nimankii reer madyan la odhan jiray waxaan u dirnay walaalkood shucayb nebi shucayb baa loo diray qoladii reer madyan iyaga laftigooduna waxa ay degi jireen uun eriyadaas ayay degi jireen mandiqada waqooyiga ee sacuudiga ay degi jireen imika intaa isku ah qaala markaa wuxuu uhi yaa qawmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayruh ilaahay un caabuda cid kale ma lihidin qad jaa-atkum bayinatun min rabbikum mucjisaa idiin timi ilaahay xaggiisa fa awfu lkayla waalmiisaan kaylka dhammaystira waa galaanka miisaankana dhammaystira waa kafadda walaa tabkhasu nnaasa dadka ha ka dhimina ha ka nuqsaaminina ha ka baqaasiina ashyaa'ahum shayadooda waxay miisanayaanay xaqu leeyihiin dadka ha ka goosannina walaa tufsiduu fi lard dhulka ha kharibina bacda islaaxihaa intuu ilaahay cadaalad ku hagaajiyey intuu ilaahay wanaajiyey kadib daalikum khayrun lakum kaasaa idiin fiican in kuntum mu'miniin haddaa ilaahay rumaysan tihiin nebi shucayb saasuu isaguna ummaddiisii ula hadlay taariikhdooda iyo qabiiladoodii abtirsimada ay ahaayeen iyo sanadku intuu ahaa iyo arrimahaasoo dhan qur-aanku ma gelaya cibrooyinka iyo casharada laga qaadanaya halka ayaa uu ka warramaya horaynu usoo nidhi ummad walba gaalnimada waxa uu helinaysay arrin kale oo foolxumo ah oo dheeraad ah kuwaa hore haddii ay khalkhal ku sameeyeen xagga akhlaaqda kuwanina khalkhal iqtisaadi ay sameeyeen dhaawac iyo dulmi xagga dhaqaalaha ah oo dhibaatada ummadda laga soo gaadhsiiyo maalkeeda iyo horumarkeeda dhaqaale waa mid wada taabanaya wada damqayo mararka qaarkood dagaalkaba ka daranba dagaalka wuu ka daran yahay dhaawaca iqhtisaadiga ah ee ummadda ku yimaadaa waayo waa cunahooda iyo hungurigoodu taabanaya saa daraaddeed ba had iyo jeer dadka ammaanada ummadda u haya ay tahay inay aada uga fiirsadaan oo ixtikaarka waxaa la yidhahda ay iska ilaaliyaan almuxtakiru khaati waaljaalibu marsuuq xadiidkii xasankaa nebigu waxa uu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka ka qufulanaya raashinka dadku cunayaan si uu aada ugu qaaleeyo adduun badan uga helo waa gefsan yahay khaati gef weyn buu ku dhacay halka uu duceeyey qofka wax badan soo waaridaya wax badan dadka gaadhsiinaya isaguna waa marsuuq ilaahay baa arsaaqaya oo albaabada arsaaqada u furaya
qofka muslimka ahina maaha mid naftiisu ay u daran tahay une bulshada aad iyo aad buu ayuu maaragtay ugu naxariisanaya mar hadduu ammaanadan gacanta ugu hayo rasuulku wuxuu leeyahy sala allahu calayhi wasalam raxiba allahu mra'an samxan idaa baaca waida ishtaraa waida iqtadaa ilaahay qofa u naxariista markuu wax sii iibinaya iyo markuu soo iibsanaya iyo markuu dayn qaadanaya naxariis ku dara haddii qofkii ganacsadaha uu idhaahdo wallaahi maanta way kala go'daye boqolkiiba 300 ka dhig jaaniskan unbaaba ku soo maraye kirooyinka aad iska bixi sidaad kabaha subka tiri waa khatar cadiim laga wanaagsan walaalaha umaad naxariisanin marka balta aad iyo aad looga fiirsado wax badan oo qaaliyoobay baa laga cabanayaa waxna waa wax dee iska jiro oo caalamka oo dhan ka dhacay laakiin oo duruufi keentay laakiin taynu ka hadlaynaa waxa weeye waxyaabaha had iyo jeer ku yimaada kala go'a waxyaabaha ku yimaada kala go'a ay kala go'een daraaddeed aad loogaga faa'iidaysanaya dadka lagu dhibayo laga fiirsado marka nimankan edeb darrada ku dhacday waxa ay ahayd xaggii dhaqaalahay qalloociyeen markaasaa kafadda iyo miisaanka shaydaanku u dhex fadhiista galaankana way nuqsaamiyaan miisaankana way nuqsaamiyaan waa qofka damaacinimada ugu liidata weeye waidaa kaaluuhum aw wasanuuhum yukhsiruun aladiina ida ktaaluu cala annaasi yastawfuun waidaa kaaluuhum aw wasanuuhum yukhsiruun waa damaaci moogta markuu dadka ka soo miisanayo aad buu jecelaya in loo dhammaystiro laakiin markuu sii miisayaabuu rifan iyo lisan ku samaynaya hoos u jaraya marka labada arrimood ayaa oo khatarteeda leba ilaahay uli kaylka iyo miisaanka galaanka iyo kafadda ibnu cabbaas baa wuxuu ku lahaa dadka shaqaalaha ah waar arrin ummado hore lagu halaagay baa gacanta ku haysaane inaga ilaaliya oo kafadda iyo miisaanka dhammaystira addoomaha iyo dadka shaqaalaha ah ayuu ku waalin jiray waar qowmu shucayb baa lagu halaagay intay kafadda iyo miisaanka qalloociyeen war iska ilaaliya oo inaga hagaajiya kafadda iyo miisaankii waxaa la mida wax kasta oo la cabirayo oo imanka kani waa makiilaadkii iyo mawsuunaadkii masaaxaadkiina waa la mid wixii mitirka la saarayay iyo wixii waarka la saarayay iyo wixii fuudhka la saarayay iyo wixii tallaabada iyo wixii kilomitir lagu qiyaasayay iyaguna baabkan ay soo galayaan waxaa sidoo kale la mid noqonaya kamka iyo kayfka shayga kamkiisii haddii laga hadlay kamkiisa waa inaan la nuqsaaminin waxa la kala iibsanayo tira heshiis lagu yahay tiradaa waa inaan la dhimin waa inaan mar kale la dhimin tayadiisana kuwaa la tigiyo kuwaantiga waxaana yidhaahdaan shayga tayadiisa iyo tiradiisa sidaa loo diiday in la dhimo shayga tiradiisa ayay xaaraan u tahay tayadiisana in la dhimo oo haddii imika aad alaab soo samayso oo alaabtii iyada oo koobiya originaal aad uga iibinayso qofkan noocan unbay noqonaysaa waa inaad u sheegto oo tidhaahdo asalkii maaha waa tijaariya la soco haddaad hesho midaan waxba akhriyaynin oo iska qaadanaya unoo dhalaalkiisa eeganaya dee u sheego waxaad tidhaahdaa ma originaal baad doonaysa mise kii tijaariga ah ila way kala tayaroon yihiin maya waxaan doonaya kaa asalka ah haddaba kii asalkaa maahee waa kii noocan ahaayee ka hooseeye la qabso taiwan iyo jabaan kana waa taiwantiyo dee saa la soco kii jabaanka ah ee doonaysay maahe marka isagu ha ku galo kolkaas ha iska kaa baayaco ila isku qiimo maahe waa tusaale weeye marka yaan loo qaadanin galaankan iyo kafadan islaamuhu dul fadhiyaan oo keliya laakiin baac mushtarigi haddaad dawadii dee kaabsooshii wax kale aad tidhaahdo war kiimikal qaalo la sheegaya dadcaynkaa sameeye war kiimikalka iska yareeyo aniga ii buuxiyo kaabsoolkun ii buuxi kii warshada haddaad u sheegto ood heshiis noocaasa la gasho oo dadkii aad uga iibiso wax dee caadiya wixiina uu yahay wax siloona de waa cudur aad u khatar badan weliba kan kasii daranba oo kasii dhib badan dadkii way daldalayaan uun mana bogsanayaan leanna hooste ka cunanta waa wax aad iyo aad u foolxun wey marka in laga fiirsado addoonku mu'minku wuxuu kaga duwan yahay qofka kale gaalka ah gaalku adduunyunbuu doonaa laakiin qofka mu'minka ahi ilaahay buu iska eegaya ilaahay wuxuu ogol yahay ayuunbaa uu ku tallaabsanaya mar walou tallaabo qaadayba talo ilaahay ma ogol yahay talo ilaahay ma diidan yahay talo ilaahay ma kugu cadhoonaya mar walba isaga waxa uu heliya shayga loo yaqaano waacidu nafsi damiirkiisa mar walba wixii xun u diidaya
وتنسكو طبعا قاعدة أين بحنين وذا حسين يسوى حكوجو دليل إلى هاي بوحر ولا تبخس الناس أشياءهم ضدك أشياء ذا كان نقص مننا معناه شيء هو عام ما هم مكيلات كي موزونات وحنا ميسام ييو وعن لا قلندر يا قرا maaha shayga qofka uu ka iibsanayo ka qaadanayo adduun ku bedelanayo isaga yeeshay hadaba ha ka baqaasi ha ka nuqsaamin nuqsaantu dhan kasta ha ahad sidaas waxa kale oo aayada aad ka aragtay hadii khalkhalka iqtisaadiga uu dhaco khiyaamadani dadka ku badato qishkan iyo isweydaarkan umada dhexdeeda yanaado waa ifsaad fil ard ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها قلك عدالة بهجاتينيسه عدالة هذا كداية يفسادك ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ساسوي ذلكم خير لكم حراشا ساكو خير بدن حاران تنوى أيام ضرب بدن بيلا حاران تواوحي لهي تبصعده حراش نواوحي لهي قرب تاقينه أو كبرى كيني ونقفكو ساو حساب تموي dhaqamadii foosha xumaaya kale gaalnimada uu helinaysa buu ka waaniyo waxa wala taqcuduha fariisanina bikulli siraadin jid kasta la maray fadhiga fariisanaysaan iska daayo jid goynta ka baxa tuuciduna idinkoo dadka u hanjabayo cabsiinaya watasuduna an sabiilillah jidka ilaahay waxa ka duwaysaan man aamana bihi qofka ilaahay rumaynaya وتبغونها جدك إلهي بادوني سان عوجا إنه نعظم القلوعة تانا إسكدايا واذكروا حصى نعمة الله إذ كنتم قليلا كل كي أهيدين وترير وحير باهيدين فكثركم مركاسو إذن بديه تدي الدنيا بوايد سيئة حصتا وانظروا آغا كيف كان صدو النقضي عاقبة المفسدين kuwii dhulbiiska ahaa hortiin soo jiray bahadaraadkoodii aga وإن كانت طائفة حتى أهاتي كوح أو منكم إذن كيدن كمده آمنوا كوا رمي بالذي أرسلت به كي لا يقول صادري وحقا حتى قايب الرميسي بالشدينا وضائفة لم يؤمنوا قالنا آنا الرمين أو بالعرق قايب سنكي قايب سميسي فاصبروا حجستا صبر ياشع بلا يا صوص عتاه حتى يحكم الله بيننا جرى إلهينا كلا حكومة وهو خير الحاكمين كوا وحكومة إسقى أخير بدن إلهي بلا يا داعي سكول هذه القايب سمالا كلا بحياة قلنا إلهي وبدبادين يقارنا ورجع ده كنت تلاقى لابد محين الإسلام وأنا دي سيب وصيب وضعه أخلاق حماد حق اقتصاد كي لي مادين وحقوه لنا برعة طلوة يكون بطني jidka ayay fariisan jireen marka siraad jidka waxa uu fariisanayaan dadka nabigan ku soo socda wacdiga ka qaadanaya dhageysanaya ee rumaynaya ayay leen xaqa u baro tagi meyside meeshan anaga fadhino mari meys ninkana arki meyside weydaaro sida ay rasuulkaba ku ahaayeen sallallahu alayhi wasallam nabi maxamed dadka hadiya jeer carabta ay yimaada xajka iyo wufuuda waxay isku day jiraan inaanay nabiga arag ay jidka u fariistaan ayay isku day jireen marka jidku mid maxsuusa ama maadiyana waa noqonayaa la taaban karayo maxsuusa mid macnawiyana uu noqon karaa macnaheedu waxa weeye jidkii loo maray rasuulkay fadhiyaan ka baydh bay leeyihiin rasuulkiiyo dadku ay ishelin weeye jid macnawiyana uu noqon karaayo jidkii ilaahay ee islaamnimada ee jannada loo marayay kaana waa fadhiisateen oo ciwaj baa la doonaysan tabquunaha ciwajan inuu jidkani qalaacmo diin hagaagsan dadka waa u diidan diin hagaagsan inay dadku helaan waa u diideen jidkii ilaahay toostaa baa diideen labada macna buu noqonay nicmadii diinta kadib waxa la xusuusiyay nicmadii adduunyada ilaahay uu idin badiyay idinkoo yar dadku hadday bataan oo ay deeyihiin dad xaq iyo wanaag isu kaashanaya amaanteeda ay leedahay hadday bataan oo baadil ay isu kaashadaan eedeedii inkaaraheeda ay leedahay marka la dheeranimada iyo gobonimadu waa dadku diin iyo xaq ay isu kaashanayaan weey hadii kale waxay soo galaysaa alhaakum at-takaathur hatta zurtum al-maqabir fakatharakum bal hada eega kuwa idinka horeeyay mufsidiinha ciribtoodii cirib xumada ku dhacda waxa kale oo calaamad uga dhigay halaagii ilaahay inuu bilaabmay dadkii waa qaybsamay rusushana caadadoodu waxay soo hadiyay ummadooda marka dadku uu qaybsamay
rasuulka in aan badayni raaco inta badanina diido inay balaayadu timaado haddii daa'ifatun minkum aamanuu biladii ursiltu bihi wixii la igu soo diray haddii qaar rumeeyeen wa daa'ifatun lam yuuminuu qaarna aanay rumaynoo maanta la qaybsamay oo lay wada raaci waayey eega fasbiruu xataa yaxkuma allaahu baynana wahuwa khayru lxaakimiin anigu halkaasaan dhigay buuhi arrinta tilmaan buu isu raaciyeyoo imtinaan iyo gallad sheegashadii ilaahay buu u raaciyeyoo inay cibro iyo cashar ka kasbadaan taariikhdii ummadihii hore ayuu ku baraarujiyeyoo digniin buu siiyeyoo wax walba isu raaci ma anfacday talow jawaabtii waa tan qoladiisii baa jawaabay khatiibul ambiyaadaa la ydhaa nebigan waa ninka ugu had iyo jeer ambiyada markaad suuradaha akhrido uu ugu dheeryahay tawjiihiisa iyo tilmaantiisu weeye marka khatiibul ambiyaa markuu intaa israaciyey waa dhowrkan rasuul markaad eegto kii ugu maqaal dheeraa weeye iyaguna waxay ku jawaabeen sidan soo socota qaala almalau aladiina istakbaruu min qowmihi kuwii isweyneeyey qoladiisa aha waxay idhahdeen lanukhrijannaka yaa shucayb waanu ku saari doonaa shucayba waanu ku eri adiga waaladiina aamanuu macaka iyo inta ku rumaysayba min qaryatinaa magaalada yadan aanu idinka saari aw latacuudunna fii millatina ama diintayada idinku noqon ama diinta idinku soo laaban waa ka baxdeene ama mastaafir baa ku qarantiinoo waa laydin eri qaala markaa nabigani wuxuu ihi awalow kunnaa haddii aanu nahay kaarihiina kuwa nacaya kuwa aan ku qanacsanaynba haddaanu nahay dee miyeydina qasbi uun qad iftaraynaa cala allaahi kadiban ilaahay been baanu ku abuuranay in cudnaa fii millatikum haddaanu diintiinna ku noqonno bacda id najaana allaahu minhaa intuu ilaahay naga nabadgeliyey kadib wamaa yakuunu lanaa nooma habboona maa yanbagii lanaa wamaa yajuusu lanaa xalaal nooma aha an nacuuda fiihaa inaanu diintiinaa ku noqonno ilaa an yashaaa allaahu rabbuna laakin ilaa an yashaaa allah in shaaa allaahu rabbunaa ilaahay iyagu hadduu doono shay dee wuu nagu fulinayaa ama hadduu ilaahay wax doono waanu samaynaynaa laakiin waxaa doontay yeeli mayno wasica rabbunaa ilaahay iyagu waa ballaadhay kulla shayin cilman shay walba cilmi buu ku koobay cala allaahi tawakalnaa ilaah iyagaanu tala saaranno isaguun baanu ku tiirsannay ducee gebagabee rabbanaa ilaaha iyagiyow iftax na kala xukun baynanaa wa bayna qowmina annaga iyo qoladayada bilxaq ilaahayow xaq nagu kala xukun wa anta khayru lfaatixiin kuwa wax kala furta wax kala furdaamiya adaa u khayr badana ilaah kuwa noo kala jehee kuwan waa soo kala taaganay halkaasuu dhigay nebigaas marka qoladii kibray ee qoladiisa ahaa markiiba waxay la soo boodeen arrinku dood iyo xiwaar buu ku soo socday dooda dabcan daalinka waa lagaga adkaadaa iyo daaquudka lana daliil baanu haynin dadna ma qancin karo marka laakiin doodaasi dhammaatee lagaga adkaado dagaalkaa bilaabma dagaalkiina wuxuu isu soo taagay inay yidhaahdeen meeshan waad ka baxaysa lama odhanayo isku qolaynu nahay isku wadan baynu nahay meeshaadi waa halkan iyo bal geestaa u baydhi waxaasi ma jiro waa laga awood badan iyo joogi maysida ka baxwey nabigii horena lagu soo yidhi kana taasaa lagu qoray tarxiil baa lagu qoray waxaa kaliyaad ku joogi kartaa baydhan diinta waad kusoo noqoto adiga inta kula socoto isagu waa rasuul ilaahay oo maba gelin laakiin waxa weeye inta la socoto ama waa idin soo laaban ama halkaasa idin mari awalow kunnaa kaarihiina waxay sheegaysaa oo ma haddaanu qasbannahayna miyaadna tirsan doontaanuun haddaanu qasbannoonu qasab ugu soo noqonno diinta islaamkeennu waa midhaanu ogolayn islaamkeennu ma ogolo qof laga xoog batay in diinta lagu qasbo haddii qofkii gaalkaa laga xoog bato islaamka dhex joogo lama odhanay qasab islaamka ku gal halka gaaladu mar walay dadka muslimiintaa ka adkaadaanba ay isu diyaariyeen inay ama dalkaa ka saaraan dadkaa ama dilaan ama diintooda ka saaraan laakiin laa ikraha fi diini buu islaamku taagan yahay qofkii laguma dirqiyayo diinta ee waa in la qanciyaa qalbigiisa la qabtaa waayo haddii la qancin waayo lagu qasbo dee gaalnimunbuu qarsan oo munaafiqunbuu noqon kaana ma doonayno ila waa masina dhex jiifa munaafiqe ilaahay been baanu ku abuuranay haddaanu diintiina ku noqonno intuu ilaahay naga nabadgeliyay kadib wamaa yakuunu lanaa an nacuuda fiiha waxay sheegaysaa kownu lmanfiyu fi lqur'aan alkown almanfi fi lqur'aan kaana yakuunu haddii la anfiyo qur-aanka dhexdiisa macnihiisu maa yajuusu walaa yanbagii lanaa wey nooma habboona xalaalna nooma aha inaanu diin kufri ku noqonno macaanka iimaanka mar hadduu qofku dhadhamiyo mari mayso
in xaggaa loo jiheeyo ilaahay hadduu doono wax dee waanu yeeli tanna ilaahay ma doonin ilaahay cilmigiisaa ballaaran waanu tala saarannay isagaanu baryay buu yidhi ilaahay kuwana kala xukun ilaahayna wuu kala xukumay isagana wuu badbaadiyey laba ummadood oo isku barbarnool bay ahaayeen kuwana wuu badbaadiyey nabadgeliyey kuwana balaayadiisiibuu ku camimay ilaa isaga ayaa wax kala saaraya qaanee isaga ayaan waxba ka qarsoomayn ka godobaysan ilaahay kama qarsoomo inna rabbaka la bil mirshaad allah subhanahu wa ta'ala